daawo cusub oo la neefsan karo oo TB ah. Cilmi-baarayaal ka tirsan University at Buffalo ayaa sameeyey daawo cusub oo qaab neefsi ah inhalab leh oo loogu talagalay tuberculosis TB. Daawadan cusub waxay isticmaashaa nanoparticles si ay daawada rifampin si toos ah ugu gaarsiiso sambabada meesha uu cudurka TB ugu badan yahay. Maxaa muhiim ah? Rifampin waa daawo oo aad u muhiim ah, laakiin marka afka laga qaato waxay dhaawici kartaa beerka, gaari kartaa sambabada oo keliya qadar yar u baahan tahay in maalin kasta la qaato muddo bilo ah. Daawada cusub maxay qabataa? Nanoparticleska ayaa rifampin si toos ah ugu geeya sambabada, ku sii haya sambabada muddo dheer ilaa 1 toddobaad, hal mar yareeya waxyeelada jirka intiisa kale si gaara ugu xirma macrobages. Unugyada uu TB ku dhuunto maxaa laga helay tijaabooyinka? Waxaa lagu tijaabiyey jiirarka 2 nooc oo TB ah. Daawada la neefsanayo waxay gaarsiisay rifampin sambabada si ka fiican, ku sii haysay heerar sare oo daawo ah muddo dheer u shaqaysay si la mid ah ama ka fiican daawada maalinlaha ah ee afka laga qaato. Faa'iidooyinka la filan karo waxaa suuragal ah in bukaanku u baahan doonaan hal mar usbuuci oo keliya halkii ay ka ahaan lahayd maalin kasta. Waxyeelada beerka iyo jirka intiisa kale way yaraataa. Daawadu waxay noqon kartaa mid fudud, raqiis ah, la heli karo dunida oo dhan. Faa'iidooyin ka baxsan rifampin sidoo kale waa muhiim u ah Mycobacterium kansasi. Mycobacterium henobimaclum disease qaabka cusub wuxuu yareyn karaa dhibaatooyinka isdhexgalka daawooyinka drug interactions. Maxaa higa? Cilmi-baarayaashu waxay rabaan inay isku daraan nanoparticleskan iyo daawooyinka kale ee si loo sameeyo daaweyn isku dhafan oo waxtar badan.